إلهان عبد الله محمد وقبرير وصدحية طبنجرة هو يدد عريان حيد وحق رح كود لي ميليشيات كهالشباب أفري طبنكي أبريل سنة كان إلهان وحي هو يدد كوري حيسي كورسيقة دادك نافضة meel ku dhow dhismaha wasaaradda tacliinta sare halkaas oo ay al-shabaab ku qarax gaari la beegsadeen isla goobta ayay ku geeriyootay hooyo xabiiba maxamed faarax ilhaan waxa soo gaaray dhaawacyo jirkeedana waxa weli ku jira firiro waxay nooga sheekaysay sidii ay wax u dhaceen samarweena u soconay inta kuna seenay biyo soo gaday xarunta oo wasaaradda agteeda geeskeeda fadhiisi biyo soo doonay saanta soo kala wareegsayna qarax yaa la kulmay biyo inta way soo qaadaysay marka qarax noocay oo qarax mashey kar wala laakiin noo hatan oo kala wadi noohay moota isla markiis ku dhaceen isla markiina wuu dhacay waxba arkaysi mugdi busti ay qarisay abaar ka dibna asoo ardana ay qabatay dadkii loo soo sheegay marka hooyo xagee ugu tagtay marka meesha ugu soo ortay naagay soo dumarkii maxamada bilaabatay meesha ka soo ortay hooyana meesha ugu soo tagay kadib hooyana wax gaareen goorma ogaatay markiiba waa ogaay saanta u kortigay musti ay qarisay meel dheer ka arkay inay meetay ilhaan waxay weli la nooshahay naxdintii ay ka qaaday qaraxii lagu dilay hooyadeed fasir uma heli karto sababta loo dilay hooyadeed waxa kaliya oo ay og tahay in loo dilay si xaq darro ah hasta wax xuna dhacay maxaa dareemaysaa markaas adiga waxa dhacaan ma oysid waa oy yaa ku qabtay markaa oysid naagay wada nin diriskeena aqoonsada kadib oo guriga geeyay kadib abtiyaala loo soo sheegay meedka waa gartay adiga kadib isbitaalka lagu keenay ka hor xaaladaas ay ahayd isbitaalka inta ku jirtay iyo xaaladii waa iska xumaad walaasheed maryan cabdullaahi oo xaamilo ah waxaa la dhigay cisbitaal kadib markii ay la mirbeeshay naxdintii geerida hooyadeed caafimaadii ma fiicnaata dhawarto maxamed cabdullaahi waa aabbaha dhalay ilhaan waxa uu ii sheegay in xaaskiisa oo ka tagtay 3 caruura aanay cidna dembi ka gelin uuna aad uga naxay geerideeda balse waxa uu alla u sheeganayaa dhibta gaartay والله درينك هو يلا أنا قلنا كله وأركض قركرتا أسد حاجة وكتب مدنا وادمتي أفري هاين قفنا فايس كذا ريال وقهر الورها مسكين درينك كرتي كله نصيب رباني هو من السبتاك جيفتا لا الحمد لله لا هيك أنا الحمد لله محدي كرم hooyo xabiiba maxamed faarax waxay ka mid ahayd 10 qof oo rayid ah oo dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaareen weerarkii al-shabaabku ku qaadeen dhismaha wasaaradda tacliinta sare al-shabaab ayaa si xishood la'aana ugu faantay dilkeeda taasoo caddayn buuxda u ah in kooxdu u aanqabto daadinta dhiigga bulshada oo dhan